الرحمن الرحيم gudoomiye Faisal gudoomiye degmada Farweyne gudoomiye bal xaaladda deegaanka gudoomiyaha ka tahay iyo abaaraha deegaanka ka jira bal faafaanaysa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan salaamayaa dhammaan saxaafadda halkan hor taagan waxaan intaan abaaraha u galin waxaan halkan doonayaa in lagu mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo maanta aanu ku jirnay xil wareejintii gobolka Maroodijeex oo soo magacaabay badh saab cusub oo runtii hawlkara oo aqoon badan isku leenahay ilaa halgankii xisbiga kulmiyana si fiican aan u soo wada shaqayn jirnay waxaan leeyahay madaxweyne waan kaaga mahad celinaynaa magacaabista oo soo magacaaday badh saabka cusub ee gobolka Maroodijeex inta markaan ka gudbo haddaan u galo xaaladda degmada Farweyne waa degmo aad u ballaaran ay hoos yimaadaan 40 tuulo oo aad u kala fog runtii oo population aad u fara badan ay degan tahay waad aragteen xilliyada foodadka amba xilliyada diiwaangelinta population halka ku nool halkaas laga garan karaa waxaa jirta abaar dalka ku wada dhacday hase yeeshee waxaa degmada haysta culays aad u fara badan dadkii bariga iyo abaaruhu ay ka dhaceen ee soo guurtada ahaa ayaa culays badan degmada ku haya oo runtii ku dhex dhibaataysan waxaan kaloo ugu mahad celinaynaa wafdigii uu hogaaminayay wasiirka diinta iyo awqaafta Khaliil oo ahaa gudida abaaraha qaranka oo dhawaan lagu soo booqday degmada soona arkay xaaladda ay ku sugan tahay degmadu waxa lagu jiraa xilli jiilaal oo adag waxa lagu jiraa xilli dhaxan aad u badan dhacayso waxa lagu jiraa xilli biyo la'aan ay ku soo fooladahay degmada waxaan markaa ugu baaqaynaa gudida abaaraha iyo cid kastoo dadka gargaarta dadka degmada ku soo qaxay ee dhex degan iyo dadkii deganaa oo hore oo labaduba imika aad mooday in isku mid noqdeen waayo markay biyihii yaraa iyo baadkii ay wada cunayeen labadiiba isla wada quuteen waxa timid in labadiiba farmarnaan soo joogsadeen waxaan leenahay dadkaasi gudida abaaruhu oo hore u soo indhaydhaysay horaha ugu soo gurmato dadkaasi wixii ay u hayso oo baad iyo biyaba ay u soo gurmato waxaan kaloo halka baaq u jeedinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo u qaabilsan dhinaca adeegga caafimaadka iyadana inay ka soo hawl gasho dhinaca caafimaadka degmada oo waxaan maqlayay maalmo dhaweed oo kormeer ku mariyay degmada inay ka jirto xaalad caafimaad oo dhinaca xoolaha ah oo geela iyo adhiga iyo loodaba wixii yaraa la haystay markay gaajoodeen inay xanuun badan tamar iskaga celiyaan xanuunkiina ay waayeen waxaa kaloo lagu baaqayaa wasaaradda caafimaadka oo runtii ay aad uga hawl gashay iyada hase yeeshee ay naga xoog roon tahay dee baahida ama dawooyinka yaalla degmada ay ka xoog roontaan u baahannahay iyadana naga warhayso oo ay tiiman aad degdeg markaan soo hadalnaba iyaguna ay kormeer nagu soo maraan taana wasaaradda caafimaadka u jeedinay gudoomiye tirada guud ee dadka deegaanka Farweyne afarta degmo hoos yimaada waa tuulo waa intee gargaarka la gaarsiiyay dadka tabaaraysan ilaa hadda noo sheegi kartaa runtii ma sheegi karo iminka gargaar aan oran karo way soo gaadhay degmada Farweyne oo gudida abaaruhu iminkay kormeerkoogii ay ku jiraan ay nagu soo maray ku indheeyeen laakiin hore wax loogu qaybiyay ma jirtaan leeyahay degmada intii ay jirtay oo dad wadaado meelaha soo wax geeyay mooyaane laakiin waxaan oran karaa dadkaasi way gaadheen ma jirtay ilaa hadda xagga biyaha ka waran xagga biyuhu way iminka barkii hore waanu iska fiicnayn oo dadku soo qaxay waxay cabayeen wixii dadku islaam baraagaha ahaata ama balayahaate laakiin intii imika waa dhammaad meelaha qaar ilaa xalay waa laga soo qeyliyay runtii oo biyo la'aan baa looga soo qeyliyay gudoomiye waxaad sheegtay inay dad badan oo deegaanka kala duwan Soomaaliland ka soo barakacayo abaaraha ka soo cararay ay deegaankaaga yimaadeen waxaa jirta guddi heer qaran oo abaaraha ah gudida maxaad fariin u diraysaa maxay say ilaa hadda aad ka haysanid soo gaarsiin gudida 2-3 cisho ka hor ayay igu soo booqatay degmada oo iyadoo inaydeen u socoto waan soo martay way arkeen dhibaatada ka jirta iyo xaaladda ay ku sugan tahay degmadu population ku nool ee bari ilaa ka soo qaxay degmooyinka ugu bareeyay geeri qurulugud ka yaalay baa imika xalay toolaan ku quudinayna meesha Farweyne agteeda oo daadsan oo socon karin runtii oo u baahan in wax loo geeyo fadhiga biyo baadba hadbay tahay loo geeyo marka gudidaasi runtii wasiirka awqaafta hogaaminaya wayna soo martay laakiin wali waanu ka sugaynaa oo ballantii dadweynaha wali way sugayaan waxaan leeyahay gudida ama cidii kale wax tari kartaba maanta waa xilli nafta aynu qaybsanayno waa xilli aynu qofkeena baahan ee jilcsana ilaahay isku naxariista buu yidhi ilaahay isgargaara buu yidhi qoladiina saxaafaddana waxaan uga mahadnaqaynaa iminka aan ku arkayay waayaan dambe sida aad u baahisaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta waa sida siyaasadda u baahisaan baad si ka daran baad u baahisaan abaartii ka jirtay dalkana aad iyo aadna waan idinku mahadnaqaynaa waxaan leenahay ilaahayna waan la barino aynu ilaahay raxmaadka barino gacanta ilaahay baa wax wada gaadhee halgankaa badan iyo warbaahintaa badan ku jirtaa idinkana waan idinka mahad celinaysaa saxaafadda